Assalaamu calaykum. Waa qiso ka dhacday kollejka aan dhiganayay, waxayna ahayd subax Isniin ah. Runtii maalin maalimaha ka mid ah ayay noqotay. Iftiinkiina wuu soo baxay, maalinkiina wuu dilaacay. Annagana kalaasyada ayaan soo aadnay sidaan cashar u qaadano. Macallinkeennina wuu joogay oo asiga ayaa kalaasyada nooga horreeyay. Annagana waan fadhiisanay. Macallinkii markuu casharka noo bilaabi rabay ayaa naagtii waardiyo oo iskuulka waardiyeynaysa hortiisa imaatay. Macallin, nin tuug ayaa soo galay. Wuxuuna ku dhahay waji cambey ardayda ka cabsinin. Annaga yaab runtii Said ayaan u cabsanay. Macallinkiina wuxuu nagu dhahay arday waxaana naagtan ha u bixin xarab dheer ayaa la ciyaalkay waabsataa. Xilli dambe ayaa la gaaray. Annagana xaafadihii ayaan iskaga laabanay. Waxa waa school boarding. Xaafadahana iskuulka dhexdiisa ayuu ku yaalaa. Waana iska seexanay. Xilli ay 1 saac oo habeenimo ahayd ayuu tuugii soo baxay. Gurigeena ayuu Said u fiirinayay. Said wuxuu u fiirinayay qolka anaga aan seexano ay ciyaalka seexdaan. Meelaha ayuu fiirinayay. Wax shaqaaliya waxaas ayuu iska fiirinayay. Qolka anaga aan seexano ayuu soo galay. 4 arday ayuu la baxay. Gacanta midigtana wuu ka wada jaray. Meeshaasna qaylo Said ayaa ka yeeraysay. Aad ayaana u cabsanaynay. Ilaa uu maamuluhu iskuulka uu ka soo baxo. War maxaa dhacay? Maxaa waa qaylada yeerayso u dhahay. Annaga ardayda dhan way soo wada kaceen. Aad ayaan u cabsanaynay siiba aniga aad. Said ayaan u cabsanayay. Waana ka fikirayay qaylada Said oo yeerayso. Waana ka seexan waayay. Waa iska yara seexday. Aniga hurdada xogaa ila tagtay. Qayladiina markasta way ka sii daraysay. Said ayaan loo qeylinayaa waa soo kacay. Runtii aan ninkiisii ayaa ahaa waa soo kacay. Waxaana arkay dhiig sidii badi camal meesha u qulqulaayo. Dhiig ayaan soo raacay sidaan u soo daba socday. Waxaana arkay jawaan meel ku jiro oo korkiisa dhiig marsan yahay. Dhiigna ku daadsan yahay. Waxay ahaayeen wixii ugu horreysay oo aan arko oo igu cabsida badneed. Anigana afka ayaan taagay. Said ayaan u cabsanayay. Waxaana dhahay intaan meesha lagugu cunin iskaga soo tag. Laakiin gadaal ayaan qaylo ka maqlay. Gadaal ayaan fiiriyay. Waxaana arkay gacan meesha ka soo baxayso oo idhayso war i caawi. Waxaan ahay saaxiibka i caawi. Yaab waxaan wixii ugu horreysay oo aan arkay ayay ahaayeen. Gacan keligeed i caawi idhayso. Waa la yaabay. Qof bilaadan caawin kara gacan keligeed ma caawin kara. Aniga waan nahay. Orod waan soo jabsaday. Sidaan u orday waa istaagay. Gadaal ayaan fiiriyay. Gadaal markaan fiiriyay waxaan arkay qaylo Said 4 gacmood arkay. Hal mar idhayso i caawi. War i caawi. Waxaan ogaaday 4tii gacmood oo ciyaalka ardayda laga jaray inay ahaayeen. Macallinkii ugu weyn ayaa soo baxay. War maxaa dhacay? Uu dhahay macallimiintii kulli way soo baxeen. Jawaankii meesha lagu arkay. Macallimiintii ardaydii kulli way soo wada baxeen. Meesha waa la isku wada imaaday. Markii waxaa la wacay 999 booliska la wacay way imaadeen. Meeshii ka raadiyeen ninkii way soo qabteen. Ninkii asagoo wajiga jeexan ay soo qabteen. Ninkan waxaa la ogaaday inuu ahaa nin tuug dhalay ah. 100 ciyaal hore tuug gacmaha ka jarjaray. Booliskana ninkan way raadinayeen. Nin tuug ayuu ahaa oo weyn. Intaasoo ciyaal ayuu gacmaha ka jarjaray. Waxaana la ogaaday inuu gacmaha ciyaalka uu ka ganacsan jiray. Tuugiina sidaas ayay boolisku qabteen oo xabsi daa'im loogu diray. Asigoo qoslaya wili kuwa. Habeenkaas dhan ma seexanin. Saas ayuu subaxdii iigu bariyay. Markaas ayaan yara seexday. Hurdo ayaa iga soo dhacday. Laakiin hurdadii anoo ku dhex jiro aan weli waxa ku riyoonayn gacantii meesha ka soo baxaysay iyo ninkii. Runtii waxay ahayd qisadii iigu xanuunka badneed oo ku dhacday iskuulkii aan dhiganayay. Fadlan asxaabay subscribe ii saara. Beelka digniintana furta sidii inagu soo dhacaan waxyaabaha hadda ka bacdi aan soo gelin doono. Dhiirigelintiina ayaa wax weyn ii ah. Comment-na ii soo qora waxa ka qabtiin qisadaas iyo waxay nila tahay. Thanks.